بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhibaato walba oo ku haysata iyo xanuun walba oo ku haysta, fadliga Ilaahay iyo akhrinta suuradda cajiibka ah ee suuratul Faatixa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaaga kaxaynayaa xanuun walba ee jirka iyo qalbiga kaa hayo iyo murugo kasta ee ku haysata. Gabadhani waxay tiri waxaa in muddo ah ihay xanuunkaasi marka hore maanan garanaynin inay daawo tahay suuratul Faatixa, laakiin markii aan ogaaday suuratul Faatixa iyo siday daawo u tahay, waxaan bilaabay inaan isku daaweeyo. Alxamdulillaah, waan caafimaad ayay tiri. Markii aan caafimaaday oo xanuunkii uga tegay, waxaa dhacday in haddana wiil aan dhalay oo yar u iga xanuunsado. waxay tiri wiilkaygina waxaa ku daaweeyey suuratul Faatixa. Alxamdulillaah, isla galabkiiba waa u fiicnaaday. Hadda suuratul Faatixa waxaan ka dhiganay daawada gurigeena laga isticmaalo. Haddii uu qof xanuunsado, haddii ay meel xanuunto, intii daawo loo dooni lahaa, waxaa si niyad ah loogu akhrinayaa suuratul Faatixa. Qisadan xigta ee maanta gabadhaani waxay tiri waxaa habeenkii ii imaan jiray riyooyin argagax leh, anoo la eejinayo, anoo la bursanayo, masas iyo balaayo ayaan ku riyoon jiray. 4 sano ayaan sidaas dareemayay ayay tiri. laakiin markii dambe Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa i haleeshiiyey inaan habeen kasta markii aan seexanayo aan isku tufo suuratul Faatixa 7 mar. 7 mar habeen kasta inaan isku tufo markii aan sii seexanayo suuratul Faatixa. Isbuuc markii aan saas sameeyey, alxamdulillaah ayay tiri, hurdo raaxo leh ayaan seexdaa, wax dambo dhiba ma arkin. 7 mar ayaan akhrin jiray habeen kasta ayay tiri. Alxamdulillaah, hal isbuuc markii aan wadayna, Ilaahay xanuunkaas iyo dhibkaas hurdada ii diidanaya waa u jaqaaday. dhibaatadaasna waxay i haysatay ayay tiri 4 sano, hal isbuucna Alle subxaanahu wa tacaala waa igaga caafiyey. qisadeena xigta maanta waxaa ka sheekeynaya wiilkaani wuxuu yiri waxaa igu dhacay xanuunkaas wuxuu ahaa xanuun ruuxi ah, yacni xanuunada shayaadiinta iyo waxaas ayuu ahaa. mar walba waxaa la geen jiray meel quraan saar, daawooyin dabiici ah, intaba waa laga quustay. markii dambe hooyaday waxay bilowday in ay igu tufto suuratul Faatixa 7 mar, inay biyaha igu tufto, iyo sidoo kale 2 aayad ee u dambeyso suuratul Baqara. suuratul Faatixa oo 7 mar ah iyo 2 aayad oo u dambeyso suuratul Baqara, inay hooyaday maalin kasta biyo igu tufto kadibna aan ahmo. alxamdulillaah, wuxuu yiri xanuunkii i hayay Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo shayaadiintii Ilaahay waa iga caafiyey. qisadeena xigta waxaa ka sheekeynaysa hooyadani waxay tiri wiilkayga waxaa ku dhacay kansarka dhiigga ayaa ku dhacay wiil yar oo aan dhalay. waxay tiri arrintiisa aad ay ii murugo gelisay. caafimaadka aniga ma hayo, gacanteyda kuma jiro, laakiin meel allaale iyo meesha aan isdhihi kara Alleylehe wiilkaaga waxbay kaga tari kartaa waan geeyey, laakiin wax natiijo ah kamaan helin. waxay ii sheegeen kansarkan inuu gudbay xilligii wax laga qaban lahaa, oo aan hadda kaalmaati ma ogiye wax daawo ah oo lahayn. alxamdulillaah, waxay tiri wiilkayga guriga ayaan iska keensaday, daawooyinkii xanuun baabi'iyaha ayaan iska siin jiray oo iska isticmaali jiray. markii dambe waxaan u bilaabay ayay tiri inaan ku daaweeyo suuratul Faatixa, oon ku tufo, biyana ugu tufo oo u cabo, jirkiisa iyo korkiisana aan ku tufo, anoo Alle subxaanahu wa tacaala weydiisanaya inuu wiilkayga i caafiyo. alxamdulillaah, 2 bil markii aan ku akhrinayo suuratul Faatixa, Ilaahay wiilkayga waa i caafiyey. xanuunkii hayay inuu ka foqay ayaan dareemay ayay tiri, halka marka hore daawooyin uu xanuunka ka foqi jiray. isbitaal ayaan geeyay ayay tiri, baaritaano ayaa lagu sameeyey. waxay dhakhaatiirta ii sheegeen inuu wiilkayga caafimaad qabo, kansarkiina uu ka fiicnaaday, xaaladiisana ay hadda aad iyo aad u fiican tahay. qisadeena xigta maanta waxaa inooga sheekeynaya wiilkaani wuxuu yiri maalin maalmaha ka mid ah xanuun daran oo kusoo booda ah ayaa i qabtay. xanuunka markuu i qabtay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa i haleeshiiyey markiiba inaan ku aqriyo suuratul Faatixa.
suurat alfaatixa ayaan isku akhriyay 7 mar. alxamdulilah, xanuunkii waa uu idaayey. waxaadba u malaysaa in meeshaas weligeed aysa xanuunin, yacni xanuunkii sidaan ula fiicnaaday darteed. wax kale ma sameynin, 7 mar oo keliya ayaan isku akhriyay suurat alfaatixa. ilaahay waa igu daaweeyey. qisadana xigta maanta waxaa ka sheekeynaysa gabadhaani waxay tiri waxaan isbitaalka kula jiray wiil walaalkay ah, waxaana la joogta hooyaday. isbitaalka qaybta aan ku jirna waxaa ku jirta islaan kale oo cunugeeda yaraa oo ka xanuunsanaa. cunugeeduna waxaa laga sheegay kansar inuu haayo. hooyaday ayaa maamadii aragtay. markii ay aragtayna waxay tiri maxaa ku dhacay wiilkaaga? waa ay u sheegtay. hooyaday waxay soo qaadatay koob biyo ah, suurat alfaatixa ayay 7 mar ku akhrisay. wiilkii biyihii waa uu cabay, intii kalena korkiisa ayaa lagu bilbilay. hooyadiis waxay u sheegtay inay mar walba samayso oo subax walba waaga markuu baryo wiilkan yar loo akhriyo suurat alfaatixa, biyaha inna la cabsiyo, inna korkiisa lagu rusheeyo oo lagu shubo biyaha 7 mar maalin kasta. alxamdulilah, wiilkii waxay tiri bil kaliya markii sidaas la sameynayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa caafiyey. hooyadayna wiilkaas arrinkiisa kama daba harin ilaa ay ogaatay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caafiyey. waqtiga murugada ay ku haysato ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u carar. waqtiga aad faraxsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u carar. xaalad kasto iyo dhibaato kasto iyo farxad kasto iyo wax walba aad ku sugan tahay mar walba noqo qof ilaahay subxaanahu wa tacaala xasuusto. bal ka waran qof xanuunsan oo xanuun haayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhankiisa u cararay isku daaweeya quraankiisa. halka dadka qaar marka ay xanuunsan yihiin ay qayliyaan ama ay daawooyin ku ordaan, qof markii uu xanuunsaday kalaamkii ilaahay xasuustay ee aaminay ee yaqiinsaday inuu isku daaweeyo, runtii qofkaas waa qof iimaankiisa uu aad iyo aad cajiib u yahay. suurat alfaatixa waa suurad la hubo haddii ay ku hayaan xanuunada ruuxiga ah, haddii ay ku hayaan xanuunada jirka, haddii uu ku hayo walwal, isku buuq, istarays, dhibaato, wax walbay ahaataba, wala yari haddii ku hayso dhaqaale la'aan, awlaad la'aan, wax walbay ahaata, nooc kasta ee murugada adduun ay ku haysata, suuradaas waa kurba faydi. ilaahay subxaanahu wa tacaala kurbada ayuu kaaga faydayaa. 7 mar oo keliya akhriso, ilaahay kaga niyeysa wax allaala waxaad u baahan tahay. hadduu xanuunku ku dhagan yahay oo aad tahay qof tacbaan ah oo aad u xanuunsan, biidnillaah, haddii aad aaminto ood niyadda gashato in ilaahay kugu caafinayo, idanka ilaahay waa kugu caafinaya. haddii aad niyadda u gashato in ilaahay xoolo kugu siiyo, idanka ilaahay waa kugu siinaya. haddii aad niyadda gashato in ilaahay awlaad kugu siiyo, biidnillaah waad ku helaysaa. awalu shay waa yaqiin. inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa. wax walba waa niyada. muhiimad weyn ayay leedahay qofka inuu niyeysto in ilaahay caafinayo, in ilaahay awlaad siinayo, in ilaahay xoolo siinayo, in ilaahay deymaha ka gudayo, inuu niyadda gashto oo uu yaqiinsado oo uu aamino, kadibna uu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryo, akhriyana suuradan 7 mar. biidnillaah, ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj degdeg ah ayuu u furi doonaa. albaab uusan filaynin iyo meel uusan ka filaynin ayuu alle subxaanahu wa tacaala uga furi doonaa biidnillaah. ومahadsantihiin walaalaha khayrka jecel. qisaskeeni maanta ku saabsanaa suuratul faatixa halka ay inagu egyihiin. hadda halkan soo gartay muuqaalka like saar si ay walaalo badan uga faa'iidaystaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.